أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhamaantiin ummadda Soomaaliyeed meel joogtaan barnaamijda warta iyo nolol qiimo leh ayaan Ilaahay inooga wada rajaynaya inta dabadeed waxaan aad u cambaaraynayaa dadka caayan baysan ee dumarkii Soomaaliyeed gowraca ku wada jiiday ee guurso ee gub dhaqanka u yeeshay ee in badan markii aan wax ka sheego dadka qaarkii ay ku celcelinayaan daar socdaal dadka lama caayo waxaan leeyahay haddaysan taasi caynayn adduunyaduna ay laba tahay ee ay wax sharfan iyo wax ceebaysan yihiin ee aan labadaasi aysan cay iyo amaan kala lahayn waa wixii aan in badan dadka Soomaaliyeed uga soo horjeeday waa wixii dadka Soomaaliyeed aan islaam munaafaqadii iyo beentii haddaba anigu maanta waxaa markhaati leh hadalkaygii waxaan leeyahay habar gidir ifka inay ku noolaato aakhira uga roon ilaahay hortii ifka inaad sidaa ku noolaataan habar gidirey ilaahay baa og weydaan ogeynoo nafay ninku doona kuwaayaa la yidhi inaad sidaan dhaqanka noocaan ah ee dumarka Soomaaliyeed aad gowracaysaan ee aad carruurta aan muxuu ahaa ii sheeg qaangaar iska daaya 10 sano gaarin aad gowracaysaan ee aad weliba dumarka gowracaysaan ee gabdho 5 jir iyo 6 jir iyo 8 jir ah aad gowracaysaan ee aad hooyooyinka Soomaaliyeed aad gowracaysaan ee tii aad guursateen aad gowracaysaan gurigiinba iyo inaad guri aakhira aadaan baa idinkaga roonayo janno iyo naar midun baad geli lahaydeen hadda se waxa weeye ifkana waa ku ceebaysan tihiin cadaabtana waa ka buuxsamaysaan Saleebaanow Soomaalina caybaad ku tahay annagana ceeb baad nagu tahay magaca hawiye kaliya haddaad noo dayn karto waa kaa codsanaynaa haddaad magaca hawiye kaliya noo dayn karto inaan gumeed ku dhalay dumarka wada gubaya ee dumarka goorgooracaya ee weliba golo la soo istaagaya iyagoo ole wanagala gardaranya gurigiinaba waxaan arkayay kuwa odayaal garcas ah oo inta meel soo istaagay weliba dood ka sii qaba gabdhihii duduble ee afarta ahaa ee ay goorgooraceen ee hooyo iyo 3 gabdhood oo ay dhashay oo mid qaangaaru aysan ku jirin goorgooracaya hooyo umulana meesha ku gooracay ee weli dood ka sii qaba ee la wanagala gardaranya waxaas la yaab leh dawlad waxa aan ku sheegayna kuwaasi waxa ay la taliyaan qodhiin iyo xiradiin iyo dhurkiin iyo dhaqankiin Soomaaliyeed waxa noocaasi dawlad ay la taliyaan oo ka shidaal qaadata Xasan Vijay Kumar ama Xasan Sheekh Maxamuud ka doonta oo aqoono qodhiin iyo xiradiin iyo dhurkiin iyo dhaqankiin markuu inuu odawaa iyo alcadaala iyo in ka sii lidata iyo muxuu ahaa kii magaciisa muxuu ahaa la oran jiray yaboohsade dadka hadduu kuwa la tashaday iyo Abshir Bukhari iyo haddii leeyahay kuree doofaar faqan diida qorqor war ninka dadka noocaas la tashaday ee talada halka ka nuuga qodhiin iyo xeradin iyo dhurkiin iyo dhaqankiin sidabay u akaanaysaa waxaan doonayaa haddaba ummadda Soomaaliyeed inaan halkan ka iraado oo uga sheego waxaan baaris u galay Xasan Sheekh nooca u yahay dadka Soomaaliyeed waa la yaaban yihiin yab iyo ama kaag beelato waxay leeyihiin war waxaan muxuu yahay haddaba maanta aan idin baaris dheer baan galay ninkan waxaan soo ogaaday in inta meesha uu ka soo baxayo iyo wuxuu uu yahay baan idin sheegaya adigu waxaad samaysaa digsi soo qaado dab saar isku karis wax la yiraahdo waan ku barayaa oo ninkani ka samaysan yahay ilaahay hortii markii la isku kariyo Faysal Cali Waraabe iyo Axmed Ismaaciil Samatar ee markii ay xoogaa karsamaan gadaal looga daro adna aadan iyo ina waran cadde ee dabka loo gaabiyo ee dheri kale oo dherigaas ka gooni ah lagu kariyo carabla Daa'uud maxaa la yiraahdaa midaan rafata maartay kintarkeeda uu ka sheekayso oo Daa'uudka ah oo abgaalka ah oo hadii astaahil miyaa la yiraahdaa lagu daro muxuu ahaa tan abgaal Bilaal Bulshaawi xoogaa markay karsanto iyadoo lagu daro Saleebaan habar gidir oo dhan inta la soo qaado dheriga lagula shubo lagula kariyo dabka maartay loo gaabiyo boqolda iyo xerada iyo dhurka iyo dhaqanka
marka waxaas hadhowta inta weel loo dhigo lagu miiro maraqa ka soo bixi kara iyo dhadhanka ka soo bixi kara iyo dadnimada ka soo bixi karta iyo diinta ka soo dhex bixi karta iyo ninka ka soo dhex bixi kara iyo siyaasadda ka soo dhex bixi karta iyo muxuu ahaa ninka ka soo dhex bixi kara bal dhadhamiya kumuu noqonaya soo xasan sheekh maxamuud noqon maayo xasan sheekh maxamuud waa intaasoo laysku kariyey laysku dabka loo gaabiyey ee haddii la koro laysku uumiyey maraqii hadhowta laga miiray wixii soo bixi lahaa keligiis waa noocaas wey intaasay isku soo baxayaan halkaas dhadhamay marka bal hadday dhadhamayaan biyo waxay dhadhami karaan maxay dhadhamayaan waxay dhadhami muxuu noo dhadhamay wuxuu noo dhadhamay ilaahay keyrkii inuu sujuudo ilaan waxaanuu ka yimidi waa intaanoo dheecaan ah intaanoo uskag ah intaanoo qurun ah intaanoo bullaacad ah intaanoo wasaq ah intaasoo dhanoo laysku ururiyo dheri lagu shubayo laysku kariyo dabka loo gaabiyo dheecaankii ka yimaada muxuu diintiisu noqonayaa muxuu dhaqankiisu noqonayaa maxay wadaniyadiisu noqonaysaa maxay daacadiisu noqonaysaa maxaa caqligiisu noqonayaa maxaa raganimadiisu noqonaysaa waxay noqonaysaa afka sawaaxiliga aynu baranno xabashiga aynu baranno ilaahay keyrkii aanu foorarsanno oo aanu sujuudno dumarka aan xaraashno aan geyno sacuudi carabiya haddii ilaahay kuu roon yahay aan lacag siisanno haddii ilaahay kuu roon maxay noqonaysaa xabaalaha badiilkan la dhacay lagu barwaaqo la masaynisay baratayo boobkii lagu raay laba kalena beecii gabdhaha beesa laga keenay jaamacad balaahiyaad ku gala soona baxe maanta dhul bannaan waxaan boobayana kuwa kalaa biisha baahidan ku soo koray midnaba beerka kama hayso baasiinkii laga raysay ee habartu beecaysay barwaaqoon iyo hadan badarna waa rugnay eebergeedeen damboolaysayeen barakaciyo weede waxa ay bartaasi fadhow sacabka markaasi sacab la dhacayaan balash uskag waxaan kale maxiin marka wala socdaa waxa kaloo la socdaa waxa weeye hal baktiday bariyana huursanayd bacdna hoostaala maxaa uu imanaya wixii waxa uu imanaya duqsi ah wixii baranbara bakti ku nool ah wixii maaragtay ilaahay ku roon yahay dhase ah wax allaale iyo wixii qurun raac ah baa soo raacaya waxaan kale la socday ee anyaanyufka ahee fiqi kadabshiir iyo haddii ilaahay ku roon yahay baqasha weyne gurigiisa joogtay xamse iyo haddii ilaahay ku roon yahay fartaag iyo haddii ilaahay ku roon yahay waxaan kale u jeedahay waa qurun raaci wey qurunkii dad yahow soomaaliyeed marka inta aan idin leeyahay wax kala soo baxee maxaa idiin bannaan waxaa idiin bannaan inaad waxaan iska dhicisaan iska saartaan inaad garab istaagtaan samata bixinta siaad u guulaysataan haddaad sidaa ku joogtaanna wallaahi iyo bilaahi iyo tallaahi baydaan diin yeelanaynina dhaqan yeelanaynina dowlad yeelanaynina dalna idaan yeelan doonina sidaana waad ku jiri doontaan qurunkaasaad ku dhex jiri doontaan waxa idiin taliyahana waxay noqon doonaan waxa aan idiin sheegay ee dheecaanka ka soo baxay intaasoo laysku kariyey oo aad taqaanaa dheecaanka ka soo baxay baa idiin ahaan doona dhadhan iyo xikmad iyo dad iyo dowlad iyo diin iyo dhaqan intaa aan idiin sheegay waa Faysal Cali Waraabe haddii la korreey adna aadan walaalkay markii lagu dhufto walaalkay waa maqnuud oo markii lagu dhuftaan anna farxad la dhidida London dhexdeeda ka lahayd ilaahay hortii been sheegi maayo Faysal Cali Waraabe oo aad taqaanaan oo nacas ibnu nacas oo fataal xamarka ahaan jiray waa fataal firi ninkaanu meel walba xasan inta aan idin sheegay dhacanada Soomaali bay ka soo galayaan Faysal wuxuu ka soo galayaa fataal buu xamarka ahaan jiray iyo afraq xumo iyo aflagaado iyo dadnimo xumo iyo munaafaqad adna aadan xaquu ka soo galaya wuxuu ka soo galayaa diin la'aanta dhacaankii dhibic waa meesha ka imanaysa xaqii ka soo galaya hadii iran waran cadde akbar munaafiq saqajaan oo libaaxyadiisa iyadoo isaaqadayo libaaxyadiisa hilib ka dharjiya cid kale naf kale wax uma ogola xasan vijay kumar naftiisa iyo ilmihiisa isaga la kala celinayo iska daayo waxaan ahayn حقو كسو قلا محوها نيكا اللي يرادو أحمد إسماعيل سمتر شخصية حميدة يدين العنتا ونيكا لها محوها ودمقليسينو معايا هاي دينة إسلامك إن دالك لقول نقو أنا قو مقبو حقو كسو قلا يا ماشي اللي عرب له يا بلال بلشاوي حقو كسو قلا
doqonnimada jahliga liidanaanta caqliyarada iyo dhaqan xumida buu ka soo gelaya waa dhinac ka mid ah waxaan uu ka samaysan yahay oo la garanaysaan haddee waxaanoo laysku wada kariyey waxaasaa wax idiin ahaan doonaa haddaydaan maanta kicina haddaydaan maanta nafta horina haddaydaan kuwiinanu ooyaya dhulkiyow naga qaxyaa war dhulka alle kugu aas oo balaaya ku qaadaya ma dhul keliya waxaad ka hadlaysaa war xisbi shaydaan asiga iyo xisbigan shaydaanka waxaan oo urursaday wada onyaanyufka meeshay doonaan ha ka yimaadaanay waa dulli dalkaaga dadnimadaada diintaada dhaqankaaga mustaqbalkaaga halisku oo dhibaato kugu haye waxaad yeeshaa dhul dalkaanaad leedahay qoriga qaado oo iska dhici argagixisadan nacluhu ku dhacay qowlaysatada ee qowle ka xun al-shabaab 7 jeer ka xun ilaahay yuusan idinku cadaabayna dalka difaacda oo iska saara halkaasaan kusoo kolaya hadalka isana yaa nasiib badan. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.